السلام عليكم كسر دواذا جانا كنا أنا هو مقعدني لمبر 7 جانا كنا يدوق بقول دونتان وحجابه آدي هيسجلين دون أي كمدين تكنولوجيا عشرة آديات ومهمسن سيدو كلا مدادالة ذنا كمان مرنا أوكي ما أنت محن هل كان إذن كوهيا ما هن مدادالة وتكنولوجي كسبسن تلفون كاغا أوجو وقتك تلفون كاغا بحا أما وقتك أوجو بدن تلفون كاغا أتصيصو سيدة أيات كوغان كرسا وقتك تلفون كاغا بحا just waxaan dul tagi doonaa halka setting markii aad taabsato kadib wuxuu ku dul geenayaa halkan waxaad dul tagaysaa halka ay ku qoran tahay decorator markii aad taabato kadib waxa uu ku tusayaa waqtiga aad taleefankaaga aad ku bixisay isla maatadan maalintan anigu taleefankayga waxaan ku bixiyay maalintan 3 saacadood iyo 27 minute استعمال application كي ugu isticmaalka badnaa maalintan wuxuu ahaa barta YouTube-ka ee baraha bulshada ku kulmaan bartaas ayaan waxaan isticmaalay saacad iyo 15 minute sidoo kale waxaan isticmaalay application-ka lagu magacaabo Yasin TV ayaan isticmaalay waa application laga daawado ciyaaraha sidoo kale WhatsApp haddii aan u gudubno waxaan u socono maanta waxaan arki doonaa application-ka YouTube bishan intii aan isticmaalay oo ku dhan bishan inta saacadood aan isticmaalay waan taabsanaysaa application-ka YouTube kadib waxa uu ku dul geenayaa maalintan intii aad isticmaashay alis ahaan intii aad isticmaashay maalintan sidoo kale waxa uu ku tusayaa halkan ay ku qoran tahay December 6 bishii lixaad bishii 12aad lixdeeda halkan falaadayga kaaga muuqato ayaa taabsanaysaa waxa uu ku tusayaa bishii shanaad intii aad bishii 12 intii aad isticmaashay saacadihii bisha December 5 waxaan isticmaalay 5 saacadood iyo 27 daqiiqo YouTube-ka ayaan isticmaalay alisahan waa kan halkan lagu soo dhigay okay waadi ka arkay marka haddii aad u baahan tahay in toddobaadyadii ugu dambeysay intii aad isticmaashay markii dambe soo taabsanaysaa haddii aan ka gudubno sidee ayaan iskaga xiri karaa application-ka aan ugu isticmaalka badanahay oo waqti xadidan aan ugu sameeysan karayaa waqti xadidan sidee ayaan ugu sameeysan karayaa application-ka aan doonayo sidoo kale waxyaabo badan ayuu leeyahay saacadooyin badan sideed ku ogaan karaysaa insha Allah casharada dambe ayaad ku baran doontaan okay just waxaan gudan galaynaa application-ka aan doonayno in aan xirno gabi ahaantiisba waa kee application-kaas waqtigiisa ayaan xadidi doono halkan waxaad ku qoraysaa app timeless markaad taabato kadib waxa uu ku soo xulayaa application-ka teleefankaaga ku jiro hadaba application-ka teleefankaaga ku jiro waa kuwan kadib waxaad sameynaysaa application-ka aad doonayso in aad xirto waqti aad u sameyso ayaad ka soo xulanaysaa tusaale ahaan anigu application-kan imika in aan xiro aan doonayo waa kan long screen ayaa taabsanaysaa waxa uu ku soo saarayaa doorasho haddii aad doonayso in uu saacad kadib inuu isxiro amba waqti aad u samayso okay just waxaan sameynaynaa application-kan 15 daqiiqo kadib ayaan u xirnayaa markii aad taabsato calaamada shirka ayaa taabsatay oo isxiri doonaa after 15 saacad ayaan toddoba saac doonaa kowda iyo 17 daqiiqo kadib application-kii waxaan isku dayaynaa inaan furno wuxuu inoo soo qoro ayaan isla arki doonaa okay application-kii waa isbedelay waa ka arkay calaamadii uu ahaa wuu iska bedelay waa isku bedelay application-ka sida tan aad arkaysaan haddii aan ku dhufano waa kan arkayo wuxuu soo qoray minutadii oo ku xidhmay application-ka wuxuu ku leeyahay ka soo fur setting minutadii aad ku xidhay anagu 15 daqiiqo kadib inaan sugu soo laabano isku ogeyn inaan ka soo saamay waka basraawayaan inka diyan galna okay hadaan ilaano iskaga baxno halkii setting aan ku laabnaa kadib markaan ku laabano kadib waxaan doontaa halkii
applicationada